aad iyo aad baad u mahadsantahay saacadda wasiir dhinaca dhegaystayaasha ayaan ku noqon doonaa ku soo dhawow barnaamijka magacaaga oo dhammaystiran iyo su-aashaad jecesha inaad weydiiso wasiirka. magacaygu waa Nuur Salebaan Nuur, waxaan ka soo hadlayaa Hargeysa. maadaama iminka Soomaaliya muddo fara badan ay dhibaato ka jirtay oo ilaa iminkana aan wax rajo ah oo toos oo muuqata aanay jirin, faragelin shisheeye oo mowqifkiisa weliba madaxdu aanay ka midaysnayna uu meeshii yaallo oo wadamo shisheeye soo faragelinayaan, maadaama ay Somaliland iyadoo ay nabad tahay oo wadan dimuqraadiyadda iyo maxay tahay dad warqad lagu bedelaa ay mas-uuliyiinta ay heerkaa gaadheen, maana kula ahayn markaayna maanta ay taagan tahay waqtigii la aqoonsanayo ama in laftiina aad lidka u ogolaan lahayd inaad aqoonsataan Somaliland. walaal horta waa aad baad u mahadsan tahay. maxaa la yidhaahdaa anigu waxa weye walaalahay Somaliland waxa weye wax kasta oo ayagu ay rabaan anigu kulley qof ahaanteyda aad baan u garab siinaya una support garaynaya, laakiin hadda arrintaas siyaasadeed adigu aad ka hadashay maan arrin anigu go-aankeeda aan qaadan karo ma ahan. waxaan is leeyahay weli hadda lama gaarinin, waxaan is leeyahay waqtigan xaadirka waxaa la marayay waqti rajadu soo fiicnaanaysa maana waqti halkaas la gaaray waqtiyadii lasoo dhaafay markii loo fiiriyo maanta inta rajadu inay soo noolaanaysa maahan, rajadii ceel ku dhacday lama dhihi karo. kulley su-aashaada jawaabteeda intaas inay qanacgotaan u malaynaya. waa hagaag aad iyo aad baanu uga xunnahay dhegaystayaal tiro badan oo maanta nagala soo xidhiidhaya magaalada Muqdisho, marka aanu ku celinno telefoonada kama jawaabayaan, kolleyto waa cillado jira malaha. aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Cabdisamed Macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo barnaamijkaygan wicitaanka dhegaystaha marti noogu ahaa. dadka jecel inay ka qayb qaataan barnaamijkana waxaanu xusuusinaynaa inay magacooda iyo telefoonka lagala soo hadli karaba ay noogu soo diri karaan emailkan somali@voanews.com. hana ka soo ilaawina nambarka la idinka soo wici karo. barnaamijkiina waa naga intaasiya sidaa iyo nabadgelyo.